السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتeyda qaaliga jeclaa waa idin salaamay meel walba aad dunida daafeeda ka joogtaan waa mar kale iyo walaashiina Nasraabtidoon oo idin wada muuqaal kale oo cusub ugu horreyn asxaabteyda jeclaa waxaa idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan mar walba ila socotaan iigu soo dirtaan fariimihiin ama komentiyadiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta aad u mahadsantiin meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay farxad iyo caafimaad iigu noolaada insha Allah asxaabteyda maanta waxaa idin wadaa chicken curry oo aad u fudud runtii aadna u macaan badan qaabka u sameeyna insha Allah ila daawada aad uga heli doontaan waa idin ka hubaa teeda kale muuqaalka inta guda galin waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan si aad dhaqso u gaarno 300k insha Allah isla socod wanaagsan bismillah marka ugu horeysa meesha waxaa ku haystaa chicken aan soo jarjaray waxaa ku darayaa qaada haafkeed oo filfil filfisha maasha Allah cuntada way macaaneysaa ma fahamteen carafna way ka dhigtaa waxaa kaloo ku darayaa hal qaado iyo haaf oo xawaaji kaari qaadada weyn waa qaadada isticmaal way u jeedin cuntada lagu cuno hadaa rabtid laba qaado ka dhig xawaaji kaariga soo laba qaado inaad ka isticmaashid ama hal qaadi bars isku mid leewaaye marka waxa ugu badinaa xawaaji kaariga waxaa sameysanaynaa chicken curry xawaaji kaariga in laga dareemo la rabaa caraftiisa iyo midabkiisa intaba waxaa kale ku darsanaya qaada haafkeeda oo maraq digaag hadaa maraq digaag isticmaalin cusbo ku bedelan kartaa adiga dooqaaga xor u tahay soo waxaa kale ku daraya hal xabo liin dhanaan soo miiray liin dhanaanta iyadana tasti wanaagsan ay siinaysaa ama dhadhan aad u macaan badan u sameynaya soo intaana isku walaaqaya ma fahamteen xawaajiyaal badan ku daray halkaas xawaaji kaari bas isticmaalay soo wax kale hadda ma u baahnin insha Allah inta marka isku walaaqo kadib waa karinayaa isla socod wanaagsan asxaab hadda waxaa soo qaatay basal aan soo jarjaray waa 2 xabo oo basal 2 xabo waaweyn ahayd si yariis oo soo jarjaray laakiin sambuuska basashiisa camal u jarjaray waa yareeyay digsiga saliid ku soo shubtay kadibna waxaa ku shubayaa basashii saliid oo yara kulaata hadda basashii shiilaya adiga basashu waxaa rabaa wax yar inay yara shiilanto gaduud yar ay soo noqoto adiga gaduudna ma aha laakiin xogaa dahabi inay noqoto rabaa basasha kadib basasha waa walaaqeena sida caadiga kadib waxaa sameynayaa inta yani ka yara gaduudanayso bas sugaya markay ii gaduudato asku soo noqon doona insha Allah marka yaan la iga harin insha Allah si fiican ila socdo si aad u fahamtaan waata asxaabteyda u jeedin hadeertaan dahabi ama soo noqotay basashii waa ii yara shiilantay markay basasha saan u shiilanto waxaa waaye aad u macaananaysa laakiin iyadoo markaas aad ku shubtada hore wax walba uga dartid dhadhan fiican ma sameynayso soo basasha iska shiil cabaar waqti si wax yar adiga aa badneen 8 daqiiqo meelaas camal dab gaaban aan ku karinooyaa ma fahanteen cuntada dab dheer ma ku kariyay hadda waxaa ku soo darayaa digaagii ama chickenkii iyo jarjarnaa oo aa ku soo dardaray hadaayay maraq digaag iyo liinta iyo carfiska aa ku soo daray filfisha iyo aa ku soo gadinaya meeshan soo marka intaan ku daro anoo wax biyo ku darin waxaa rabaa inaan isticmaalo insha Allah yaanyo shishiid hadaa rabtid waxaa sameynaysaa yaanyada oo caadiga qabane waa shiidaysaa markaa shiidid iyada biyo ahaan ugu daray ma fahanteen soo ani laakiin iyada hadda ma isticmaalooyi shishiid bas rabaa inaan ku daro hadii aadan jecleen shishiida isticmaalayo waxaa ku bedelan kartaa yaanyada shiidan fahanteen laakiin ani howl fududeys ka raacoya soo midaan way yar tahay la waxba ku soo daray maadaama ay yar tahay wax badan aysan ku jirin saa idin sheegana waa yaanyo ku bedelan kartaa qasab ma aha inaad shishiid bas isticmaashid aniga camal ma fahamteen qasab ma aha yani soo warka idinku bidin waa umaleena maanta waxaa hadda ku soo darayaa toon soo tumay toonta maasha Allah caraf iigu sameynaysaa 2 xabo toon oo soo tumay ku soo darsaday inta marka hadda ku daray ilaa hadda wax biyo ku darin hadda biyo ku soo darooyaa marka wax yar oo biyo ku soo daro koob halfkiis camal hadda dareemay biyo xoogaa inay igu yar yihiin biyo kale ku soo darsan kartaa adiga isku dar biyaha ku daray hal koob oo buuxa ma dhamo
koob oo wax yar dhiman camal waaye. Hadda waa daboolayaa, dabkan waa u gaabinayaa, waqtiyaa siinaa insha Allah ay ku bislaato. asxaabey adiga waa isku soo noqonay muddo 15 daqiiqo 20 daqiiqo meelahaas camal dabkii saarnaa jikinka. markii kadib wax biyo ah ma ku darin, dab gaaban aa ku karinayay. dabka hadaa u dheereysid dhaqsi uu ka gursanaya inuu gubtana waa laga yaabaa, ma fahanteen. marka dab dhexdhexaad markaa ku karinaysid cuntada aad u macaananaysaa xaqiiqada walaahi. hadeertaan maadaama uu isoo qaleysmo oo biyihii dhuuqa soo adkaaday, waxaa rabaa inaa kusoo darsado yogurt ama saa u taqaanaan plain yogurt. natural plain yogurt waaye midka isticmaalooyo, yacni wax sokor eh malaa yogurtkan, wuu dhanaan yahay, ma fahanteen. isagaa kusoo darsaday, waa kaasaa maasha Allah midab qurux badan oo iigu sii sameynayaa. hadaa rabtid caano qumbe hadaa helaysid waa ku darsan kartaa, hadaa rabtidna yogurtka ku darsan kartaa. yogurtka dhanaan oo maasha Allah waa yogurtka ka jeclaa caanaha qumbaha. intaas kadib maadaama hadda culeys uu noqday waa daboolay. andan waxaa isdhahdana wax yar biyo ku dar maadaama zaaid uu culus yahay, wax yar biyo ku daray. daboolkiisa ku celinayaa, adi waxaa siinaa 5 daqiiqo camal maadaama oo biyana uu iga noqday. waxaa rabaa kastoo yar inuu ii adkaado because maraq camal marab inuu iga noqdo chicken curry sameysano. waxaa rabaa laakiin dhacaan yar camal inuu leeyahay. okay ujeedima hoos u karkarooy maasha Allah. hadda waa usoo noqday, markaa biyihii iyo yogurt ku daray kadib maasha Allah hadda si fiican u dhexgalay. cabaar yar oo yogurtka isku karkareen. waxaa ku wax kale kusoo baxay. hadda last amruna ama finalka meesha ugu dambeysay maasha Allah waxaa ku sida aarab uu noqdo hadda, ma fahanteen. okay wax kale oo dab ah ma u dhinno, saana uga dejinaysaa. hadaa rabtid oo suugo camal adeeg inaa ka dhigtid oo jecesha dooqaaga tahay waa ka dhigan kartaa, like suugo camal waa ka dhigan kartaa dooqaaga, ma fahanteen. hadaa rabtid biyo yar waa ka dhigan kartaa, hadaa rabtid sidaan dhexdhexaadka ku dhaafan kartaa, hadba sida aad jeceshaha ka dhigan kartaa. waxaa rajeynaa inaan intaas la fahanay. hadda waa ka dejinayaa maadaama uu ii karsamay sidii aarabana uu yahay, dabka kasoo dejinayaa. asxaabteyda hadda waa kasoo dejiyay, sidaad ujeedaanba dhulka ayay taalaa. digsiga dhulku yaalaa ma la dhihi jiray taalaa maxaa waay. marka diyaar waa maasha Allah. ujeedinmaho adeertaa culeys zaaid ma aha, adeegna maaha, biyana ma dhexdhexaad waaye. hadda waa soo diyaarsanaa marka. oh my god bahalka dhan maraq dhan wuu isbedelay, maxaa la dhihi jiray midabkiisa madow, wax gubta camal oo noqday. waxa saas sameynayna waxaa waaye kaamirada isbedeshay because saxanka cad iyo iftiinka isku dhaco reflection ay sameynaysaa. marka wixii dhan madow ay noqdeen, ma fahmi kartiin saa markay tahay. xoogaa waxaa isku dayaa inaa si fiican usoo dhaweeyo kaamirada, kusoo dhaweeyo zoom soo saaro si oo si fiican uga aragtiin. weli waxaa waaye cadaanka saameyno, cadaanka reflection sameynayo weelka cadka ah. hadaa markay digsiga ku jirto waa ogeedin maho yacni jikinkeena ama chicken curry-geena zaaid u qurux badnaa, laakiin maxaa markii saxanka cadka lagu soo guray isaga dhan wuu isbedelay midabkiisii. laakiin makayla helooy ma aqaani sababta kaamirada ee saan u sameynayso. asxaabteyda hadda waxaa rajeynaa si normal ah u aragtaan. waa kaasaa maasha Allah sidaas quruxda badan oo kusoo baxay. weelka meesha igu daboolan waxaa ku jiro waa idin tusayaa. bariisa ku jiro, ma fahanteen. bariisa meesha kusoo gambiyey si uu kuus qurux badan iigu noqdo. bariis cad waaye. anaga maasha Allah maanta waxaa u sameysanay chicken curry inaa ku cunno bariiskaas cadka ah. hadaa jeceshahay jabaati aa ku cuni kartaa, hadaa rabtid waxaa ku cuni kartaa ceesh, hadaa rabtid waxaa ku cuni kartaa malawax, hadaa rabtid canjeero, hadaa rabtid muufo ku cun, hadaa rabtid rooti. waxaa ku dhahay bahalkan hadaa rabtid baasto yaa kareebin xataa baastada laftigeeda. wax Allah wax aad jeceshahay ama wax markaas gurigaaga ku yaalo aa ku cuni kartaa. chicken curry-ga sidaasaa loo isticmaalaa oo loo sameystaa. waxaa doontidna waa u isticmaali kartaa.
I hope hadda inaa markaa zoom idiin soo saar si fiican oo clear ugu jeediin sidaas quruxda badan oo kusoo baxay maasha allah. aaduna macaan yahay ku dhaha kaaliska arag waay macaankiisa dhanaan yar. yoogadka wuxuu u sameeyay tasti aad u wanaagsan, caraftiisana ma laga sheekeyn karo. soo tijaabiya insha allah. waxaa rajeynaa inaa marka aa sameysataan aad uga heli doontaan oo ku maqsuudi doontaan. isku soo duceynay mar walba insha allah. qalbiga idinka jeclaha asxaabteyda meel walba adduunyada daafeeda ka joogtaan, farxad iyo caafimaad idin rajeynaa insha allah. muuqaalka haduu ku cajabiyo like saar. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.